عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيجك دعونا سوا سعد سربيا waxaa idin wadalaya dhamaantiin Soomaali Maxamed sanad wacan sanad cusub sanad wanaagsan Ilaahay nooga dhigo sanadkan sanadka lagu nasto sanad barwaaqaysan Ilaahay nooga dhigo bacdeen waxaan rabaa inaan laba qodob oo kaliya ka hadlo qodobka koowaad aan ku hormaro waxaa jira dad badan oo Ilaahay Saciido ka soo hadal Kosovo waxaan rabaa inaan dadkii weydiinayo Kosovo inaan inta ugu jawaabo horta waxaan rabaa Soomaali inaan idin cadeeyo Kosovo waa wadan Serbia hadda ka go'aayo waxaan isku dayaa inuu ka go'o laakiin wali macnaha kama oosan go'in oo wali Serbia way ku dhigan tahay oo Serbia wali maysan kala harin oo maysan kala bixin oo wali way isku dhigan yihiin Kosovo waa wadan aad u yar oo aad u yar yahay dadkiisa waa 1 milyan iyo bar xitaa ma dhama 1 milyan iyo bar waa wadan aan wali si fiican loo aqoonsanin passport mar dhow samaystay muddo laga joogo 3 sano ka hor calanka sidoo kaleeto waa wadan aad u yar wadan wali dawladda Serbia ku dhigan tahay ee dawladda Serbia wali aysan fasaxin marka ii sheegay Soomaalida markii dhaysi ka soo hadal Kosovo waa wadan noocaas ah safaaradda adduunka kuma lahan oo xitaa admission jaamacad iska dhaafay safaaradda ma lahan maxaa admission codsanay safaaradda ma lahan visa meel ka qaadanaysid ma lahan mugta marka Soomaalida weydiinaysay arintaas in inta ugu jawaab waa ko qodobka labaad waxa waa ayagana dadka waxa jira ilaahay ka soo hadal arinta Montenegro arintooda xarro in wax kaga sheego Montenegro horta jaamacadooda aad u fudud yihiin oo ma dhibadno Montenegro passportka Soomaaliga way aqoonsan tahay iyo passportka Itoobiyaanka iyo passportka Djiboutiyaanka saddexdaas nooc mid ka doonto hayso waad ku iman kartaa Montenegro oo admission jaamacada hadii aad ka qaadato ama admission jaamacad ka hesho visa wax xaq u leedahay inaad xariisatid ama aad codsatid visa waa qaadan kartaa wax weyn ma ahan waxaa jira video maalin horta ka soo hadlay oo aan uga hadlay dadka jooga Dubai way u fududahay in dalxiis ahaan u yimaadaan sababtoo iqaamada leeyihiin Dubai way ka soo tii karaan Montenegro way imaan karaan Soomaali fara badan way imaatay mar walba way yimaadaan laakiin waxay yimaadaan waa waqtiga samarka oo kaliya waqtigaas oo waqtiga Soomaalida imaan karaan ama loo ogol yahay ama ay codsan karaan visa ay ku imaanayaan wadanka Montenegro sababtoo ah waa wadan ogol passportka Soomaaliga in lagu tago ama passportka Djiboutiyaanka ama Itoobiyaanka wuxuu rabo ha noqdo kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad oo jaamacadaha sida ognahay way wada xiran yihiin adduunka sababtoo ah gaalada waxay ku jirtaa ciidoodii ama Christmaskooda saa u taqaanabo sababtoo ah fasaxay galayaan jaamacadaha way wada xiran yihiin hadda wax jaamacada adduunka ka shaqeynaya haba yaraatee ma jirto oo jaamacadaha fasaxay jiraan jaamacadaha ugu dhow qaar waxa laga yaabaa bil kadib inay furmaan January markay dhamaato kadib qaar furmi karo qaar waxay furmi karaan February dhaxbartankeeda qaar waxay furmayaan bisha saddexaad ay furmayaan sababtoo ah adduunka way kala duwan yahay isma wada lahan marka Montenegro waxay furmayaan bisha koowaad markay dhamaato bisha labaad 15keeda ilaa 16keeda meelahaas ay furmayaan jaamacadahooda yaa laga buuxinin linkigooda waa ku soo dhigayaa nin aan saaxiibo qaasna ma nihin laakiin dhowr mar horaan isku hadalnay oo Montenegro degan waa aqaana oo meesha degan oo deegaanku ah hadii intaas information ka dheer u baahataan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ku soo xiri doono waxaan rajaynayaa inaadan u baahanin basiga oo aad adiga linkiga ta ku soo dhigo formka inaad buuxisid aad codsan kartaa oo kaliya jaamacadda inaad email u dirtid emailka marka dirtid passportkaaga iyo shahaadada raacinaysa iyo hal suuratee sare oo inta kaliya fiigana waa bixin kartaa wax weyn ma ahan hadii ay noqoto in fiiga aad bixin weysid hore hadda kor uga soo hadlay problemka jiri kara waxay tahay in fiiga la ku qabsado sababtoo ah sida aad lacagta ugu soo dir lahayd aad kaan karto sababtoo ah bangiyada Soomaaliya ama bangiyada Afrika ku yaalo iyo bangiyada Yurub wax xiriir oo ka dhaxeeya ma lahan marka waxa cilad ku noqon karto sida aad lacagta jaamacadda ugu soo gudbin lahayd inay kuga adkaato taasna hal idin helo doona doaleedmo marka waxaan rajaynayaa mar labaad hadii uu video ku soo gaaro inaad follow iyo share iyo like iyo comment aan la wadaagto labada kuna galoyna waxayna nooga dhiman follow iyo share ta hanaga baqiilin